عليكم ورحمة الله وبركاته walaaleyga qaaliga anigu waay walaashiina kaltuuma kookin waan ii salaamay meel kasta oo adduunka aad ka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga gacmo furan kusoo dhawaada walaalaheeni hore walaalaheeni cusub kulligiina soo dhawaada walaaleyga qaaliga maanta waxaan ii wadaa rooti aad u macaan badan oo maasha Allah aad ugu heli doontaan oo nafaqo badan leh gadaal waxaan rabaa inaan ugu sameeyo qumbo iyo caano markaan duwayo ku sameynaa insha Allah haddaarta foornada gashane haddaa rabina caadi oo dubay sida aan u dubayo camal markaani maanta ma rabnaa foorno isticmaalo haddana waxaa rabaa intaan inaan ii kala sheego inta shay ka kooban yihiin iyo sidaan isku daray kulli waa il soconaysiin qumbaha iyo caanahana marka insha Allah ayagana soo diyaar arkaysiin caanaha waa caano full fat qumbaha qaleelka waayo qof kasta uu yaqaana intan waxaa ku haystaa kareemka rootiga la marsado waaye badeeda waatana qaandada shaaha lagu labto waaye afkeeda hore hadaartidna inta qiyaasadeeda ku darsanaysaa intan waxaa ku haystaa shukulaato waaye tan rootiga la marsado dhaladeeda waxay ku jirta leewato waaye leewatadeena waa leewatada oo waxaa waa ku kuusta oo ciyow dhalaaleenin oo laakiin hal qaande qaandadeedna waxaa wata cuntada lagu cuno oo aad u buuxdo koobkan waxaa igu jiro 200 ml oo caanaheena caano fandiir waaye waxaa ku haystaa subag waaye iyo waxaa haystaa 2 xabo ukun burkeygana waa kana kiilo waaye burcado waaye waxaa u baahanahay nus kiilo 3 koob iyo bar u baahanahay intan waxaan ku haystaa sabiib waaye sabiibkeygu dhaqan yahay laakiin samarad sano markii macaan la sameynayo sabiibka in la raadiyo ku fiican yahay markaas rootiga asiga wuxuu isku noqonaa maasha Allah sidii malaata camal isku bedelaa haddana waxaan rabaa inaan isku qaso weelkayga waa kana aan ku qaso lahay ukunteeda waa tan xabadii koobaad xabadii labaadna waa tan caanaheygana waa kana leewatadan waa tana cusbadan waa taas oo ku shubtay rootiga ani sokor ma ku darooyi haddaa adi sokorta nacbantaa oo kaleeto 2 qaando malab ama 3 qaando malab ku darso maadaama ani maanta waxa waaye malaba agtii ka dhaweyn saas daraadeeda sokorta ugu joojiyay sokorta waxa waa shukulaatada ku jirtaa wixii dhan macaan isla noqdaa marabi markuu aksas ila socda leewatada waxa waa si fiican loo qasaa fiican haddii kala cajiinka dhex muuqana idoo kuus leewatada waxa waa tan oo turkida iyo meelaas lagu gado aad kuskus u taa iyo xataa ma qasmayso qalaadada markii lagu shubo camal iyo qasmay hadda waqtiga way qasantaa laakiin waxa rabaa koobkan buraan ku bilaabaa 2 koob kalena gadaal ugu daraa insha Allah soo ciyo u qasmato hadda waa isku qasi koobkii labaadan ku shubo hadda waa kana koobkii labaad koobkii saddexaadna waa kan nus koobkan waxa waaye isbeer waaye waxa loo isticmaalaa alwaaxa iyo cajiinka qasanay sidoo kaleeto meelaha ma ka saaraysid soo gacmo kaaga dhigan kulligood xataa ma isticmaalay qodob ka hareyso cajiinka anako qaandadan u isticmaalayo ujeedin wuu jilcan yahay markuu jilcan yahay kale gacanta marka ula aadid waxa laga yaabaa in istiraade wixii waa ka jilceen burka ku dar marka burka marka ka badisan adaygu ku noqonaa hadhowtin wuxuu noqonaa wax dhuunta ku istaagayo kale rootiga iyo waxa kale ku noqonaa marka duway sidoo kale taxta ceeriino noqonaa markuu jilcan yahay fiican markuu jilcan yahay wuu isqabsanaa xataa banaanka xataa uma soo baxaayo magaciisa muxuu ahaa kareemaadka ama wixii aad ku samaysid xarawa marka hadana ku sii maasha Allah soofta ugu dhigo subag wax badan oo ka saacida marka cajiin qasay sidoo kaleeto inta badan subag u isticmaal waqti dheer xataa ma ka qaadanayo fuudeeda ku noqonaa adaab jeclaanaysid laakiin marka ugu horeyso oo ko suuga ku ridid jilaaca si dareemaysa burha ku darin
waxaa rabaa caagiisa inaan ku rido diyaar oo ii yahay howl badan ma ii gelinin waa ujeedeen caagigan waxaa rabaa gobol subag inaan saas u mariyo haddaan bur aan hoos u dhigo waxaa laga yaabaa inuu qaleel noqdo burka haddaan subaga aan dhigo laakiin wuxuu noqonaa bur oo maasha allah uu noqonaa daboolkiisa waa kana waxaan usoo laabanaa hal saac kadib ilaa 45 daqiiqo maxaa yeelay qamiir fiican oo ku jiro ciyow iska qamiira inta hoosh aawado iska sii qamiira dhib ma lahan waa kaasa walaalihi isku soo noqosho wacan waay kana walaalahayga haddaan soo laabtay 45 daqiiqo kadib waa kana cajiinkeeni hadda waxaan rabaa inaan kala googooyo haddaarta gacantaada ku goos haddaarta mindi ku goos wixii dooqaaga ah waxaan rabaa inaan ka dhigo 5 gabal shantii gabalna waxaan rabaa halkii gabalba laba xabo inaan ka dhigo cajiinkana qamiirka ka bixi hadhowti ma dareemi kartid inuu kala weyn yahay intuu kala yar yahay waxaa laga yaabaa cajiinka dhan inuu kaa noqdo mid weyn mid yariis ah marka cajiinkiisa dhex gelisid markaas lay goyn kartaa qiyaastiis waa kaasa gacantii intaas ku jimeynoyaa ad inta aragti ka dhigo laakiin waxay ku xiran tahay saliidda aad ku dubaysid haddaa waaweyn ka dhigtid saliiddaada leel rabanaa buuxisid meesha aad ku dubaysid ama digsi farxaba qiyaasteeda inay tusaa sidaan u goynooyo inta kaleetana caadi aan soo gogoynaa markaan soo dhameeyo isku soo laabaneynaa walaalahayga kulligood saana soo wada kuukuuse isku jinay wada yihiin haddana waxaa u baahanahay inaan fifidiyo alwaaxna ku fidi kartaa haddaa rabtidna gacantaada ku fidin kartaa markana xabaddan waxaan igu tusaa alwaaxan ku fidinaa fudeed waayo waa kana dheer ma laga qaadahayaan ku dhahay saxankaygana waa kana suugaan soo marsada saxankii aan saaran lahay waa kana shukulaatadeedii intaasaan ku qiyaasanayaa waa kaas burkeyga baliciis intuu dhan yahay iyo kan isku jin waaye balac weyn hadda ka dhigaysidna oo aad u fidinaysid shukulaatada way badanaysaa sidii wax oo biiga la sameynayo kaleeto ani saasaa dooqayga jeclahay inaan saas u xiro afkiisa haddaa rabtid hamrana isku soo wada qabatid waa gooyi kartaa isku meeshii lee waaye laakiin saanaa rasmi ah saan markaa saan usoo qabatid haddana saana maxay ahayd isku riixriixaysaa cajiinka soo isku qabsado
xabadii koowaad diyaar waaye. saxankayga saarana. xabadii labaad kafeeyan kasoo dhiga. xabad saddexaad aan rabaa inaan ka dhiga insha Allah. sabiibka ka dhigaa. waa kana xabadii sabiibka iyo kareemka la marinayo. kareemkaygana waa kana. isla qiyaastii leen soo goosanaa. qaandada nuskeed leh waa ujeediin. qaandadii tan aadka u weyn waaye laakiin tan cuntada lagu cunaa oo dhexdhexaadka ah nuskeeda waaye. waa kasaan la u kala fidinaa. sabiibka dhexda ka saaraabo. asana waa kana isla sidii leh waaye. saas isku qabooya suulkuna ku sii riixooya cajiinka sida isku qabsado waaya. iidana sidoo kaleeto waa kana saana u sameeyey markaan soo dhameeyo arkaysiin walaalahayga intaan wanigu filantaa 2 xabo. waa kana waa soo dhameeyey saana u soo saartay saxankayga. qamiirka leh waa si u kala horeeyaan oo si kala qamiirayaan wax kala weyn ma laha. haddana waxaan u baahanahay qaybta dubista inaan soo diyaar garoobo iyo la socda walaalahayga. waay kana walaalahayga hadda waxaan soo diyaarsaday birteedii iyo saliideeda iyo mashiinadeeda. dabka waxaan u baahanahay dab oo 2 nabar camal aan geysto. saliidana markay ay soo noqoto kuleel dhexaad ah aan burka ku bilaabaa. haddana gobolkan yariiska cajiinkan rabaa inaan kusii rito. saliidda markay soo kulaato waxaan ku kasi karaa gobolkaas yariiska cajiinka ah markuu soo bislaa rabo aan ku ridaa kulligood. saliiddeeda hadda way soo kulaatay inaan ku bilaabaa rabaa. cajiinka waxaan ku ridaa caanaha. caanaha waqti badan kuma haynaay. waa kaasama kasoo bixiyey waa ujeediin. qumbahana waa kana qumbiya oo qaleelka ah waay. asigana waa ku qasaa. xogna ma ugu riixaaya bis inuu ka qabsadaan rabo korkiisa. waa kana diyaar waay xabadii koowaad. xabadii labaadna waa kana iyadana sidoo kaleeto. haddana qumbiya haddana soo qaadana baaquligeygii. waa kana howl fudeed waaye. macaana wuu yahay maasha Allah. qumbaha maasha Allah uu ka dhigaa shay kasta. 3 xabo way ku filan tahay. inta kalena aan ku riday waa arki doontiin laakiin inta caana aan ku riday 3 ka arkaysiin iyo qumba. burka markuu hoos oo balcas ka yahay gadinaa sidoo noqdo bur oo maasha Allah ah. kor iyo hoos oo kuskus ka naqanaa. haddana waa gidina walaalahayga ila socda. markuu geeska banaanaado alxabaan ku sii ridanaa. dubistiisa waqti dheer kuguma qaadanayso. foorna haddaa gelisid 30 daqiiqo waa geli lahayd. inta laakiin 15 daqiiqo leh waaye. oo dulqaad u baahan yahay inaad tartiib u gudgidisid. oo dabkana foorta ma ku yahay ka gaabe. dabka haddaa arkaysno burka iyo kusoo guduudanayo iska gaabe. hadda waa kana xabadii koowaad ka bixinaa. fiidoogana waa soo gagaaminooya saas oo ogaada.
kalarkana ugu bixinooyaa haddaa gaduud zaa'id jeceshahay si gaduud zaa'id ka dhigo laakiin midabkana qurux badan maasha allah qaybtii koowaad waa nila wadaagay qaybtii labaad waxaa rabaa insha allah inaa caadi tartiibteeda soo dubo markaan soo dhameeyo oo miiska aan kusoo diyaarsado oo saxan kusoo shubta arki doontiin walaalaheyga hal xabo oo midka sabiibka ah hal xabo waxaan tusaa oo midka oo shukulaatada ah waay kana walaalaheyga sidaana soo diyaarsaday saa aad rabtid oo diyaarso waa kana midabkiisa maxaa arkoosiin wax isbedel ma leh sidiis lee waay shay waxaa jira markii la dubo oo gadaal madow ka noqonaya jirto laakiin burkan kaaliska arag waay qumbaha wuxuu kasii dhigaa maasha allah iyo caanaha halkan xabkii oo waxaa waa shukulaatada dhexdiisa arkeynaa hay maxaa arkoosiin ceeriin ma arkoosiin mise alaab aboo isbuunya arkoosiin kaaliska arag waay maasha allah cunoogiisana maka daalaysiinba maasha allah taa soo baroobeysiin wax saliid la dhahayo mala cawaayo uma baahna xataa inaad saliid ka cabsatid xataa haddana waxaa rabaa xabadii kaleeto waa kana abuu sabiibka ahay asagana maxaa arkoosiinahay aye foorno maxaa laga tuugaa foorno yaa bay foorno la-aan sameysan kari xujo dhan maxaa keenaa fudeed waa kana siirta u rariix siirtad waay shay waxaa arki jirna marka kulul yahay hadduu cajiin leeyahay waxaa ku fahmaysaa cajiinkia isku dhagaayo laakiin abuu usbuunya hadduu yahay ama ha cusbaado ama ha adkaado saas loo ahaanaa walaalahey qaaliga video intaasuu ku eg yahay daawashada video ku mahadsantihiin assalaamu calaykum